Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan kusoo dhawaataan casharkeenii taxanaha noo ahaa ee aan baranaynay ku saabsanaa C sharp. C sharp waa object oriented language sida magaciisa la yidhaahdo. Si aad u noqoto ruux aad u yaqaan luqadan, waa muhiim in aad si fiican u fahanto waxa loola jeedo classes iyo objects. Waxaan maanta ku bilaabaynaa in aan marka hore ku samayno definition iyo explanation waxa loola jeedo classes iyo objects. Kadibna waxaan ku xijin doonaa in aan samayno very simple classes annaga oo ku samayn doona demonstration. Yaqaano object oriented program waa collection of objects oo ay ka dhaxayso wada shaqayn. Marka waa objects fara badan oo wada shaqayn ay ka dhaxayso. Marka haddaad maqasho object oriented program, run ahaantii waxa ay ila tahay annaga oo dhan waan ognahay waxa laga wado objects. Waayo real world markaan ka hadlayno wax kasta oo aan isticmaalayno waa objects soo ma? Tusaale buugga ii saaran miiskayga aan hadda fadhiyo waa objects, ama dadka aan maalin kasta la hadlo waa sooma. Marka haddaan u dhaadhacno programming-ga objects waxa uu leeyahay laba waxyaalood oo loo kala yaqaano state iyo behavior. Haddii aan qeexno waxa laga wado state marka programming laga hadlayo, waxaa loola jeedaa objects-ka waxa uu ku sugan yahay waqti xaadirkan. Waqti xaadirkan object-ga shayga ah muxuu ku sugan yahay? Wuxuu programming-ga loo fahmaa in ay tahay state. Behavior-ka haddaan u soo laabano object-ga uu samaynayo ayadana waxa weeyaan ficilka uu hayo ama uu samaynayo waqti xaadirkan object-gu ayadana waxaa loo yaqaanaa behavior. Marka behavior iyo state waa laba erey oo soo laalaabta, labadana waxay ku dhacaan object. Haddii aan tusaaleeyo waxa loola jeedo behavior, tusaale gaariga waxa uu ku socdaa waddada. Ficil buu samaynayaa soo maaha? Waa behavior wey. Haddii marka aan soo koobno micnaha waxa loola jeedo objects, marka aan samaynayno objects waxa aan samaynayno waa shay isla markaas xambaarsan macluumaad ficilna samayn kara. Intaa markii aan fahanay ayaan waxaan u soo dhadhacaynaa in aan fahanno aan u imaano micnaha loola jeedo class. Class markaad maqashaan waxa uu qeexaa object-ga ficilkiisa iyo xaaladdiisa. Haddii aan tusaale ahaan ku dhahno luqadda English, a class defines an object's behavior and state. Waxaan marka hadda sii wadaynaa inaan samayno si practically ah qaabka aan u samaynayno marka hore classka. Kadibna classka ayaan waxaan samaynaynaa inaan isticmaalno classka si aan u abuurno object. Sidii aan usoo micnaha hadda aan uga hadalnay. Haddii xoogaa ay adkaato ama aad fahmi weysaan, dhib male. Mar walba class iyo object waan isticmaali doonaa, mar walbana waan ka hadli doonaa. Laakiin hadda waqti xaadirkan waxaa muhiim ah inaad fahanto class iyo object waxay kala yihiin iyo qaabka loo isticmaalo iyo sida loo sameeyo. Marka hadda waxaan samaynaynaa class anaga aan leenahay. Hadda saa ujeeda halkan class program kan meeshaan ugu nimid soo ma? Kan waa samaysan yahay. Class markaad samaysanaysid waxaad micnaha labadaas bracket dhexdooda ayaad baadhigaan ku dhex samaysana gudaheeda jahada. Kan waa class, intan waa class, waa gaabin karnaa haddaan rabno. Intan waa class isku xiran. Annaga class goonaan samaysanaynaa halkan ina keen. Waxaan leenahay marka mar walba class aad samaynayso waxaad dhahdaa class ana ku hormaraysa ereyga class. Fiiriya haddaan xarafka weyneeyo oo aan dhaho saas ma shaqaynayso, isagaa nasaxaya. Waxaa la iska rabaa class waxaad qoraysaa class oo xarafka ugu horreeya uu yar yahay. Magaca aad la baxaysana waa inuu xaraf weyn ka bilowdaa. Okay, magacyo. Classkayga waxaa la magaciisa waxaan u bixiyey magacyo. Okay, magacyo noo qaban doonaa. Okay, halkaa ina keen. Kadib waan sii wadaynaa. Marka classki inta markaad samayso bracketkan dhexdooda waataan soo baranay waa badiga classka ama classka gudihiisii wey. Classka marka gudihiisa aan samaynayno waxaan samaysanaynaa data fields oo classkan uu iska leeyahay. waxbaan marka halkaan rabaa inaan idin tuso oo muhiima. Haddii aad dib baan uga hadli doonaa si fiican. Dib baan uga hadli doonaa. Waxaan leenahay sida hadda ula socotaan
private ka sababta aan u qoray wax kale ma aha private waxaa la dhahaa marka luqadda programming laga hadlayo waxaa la isku fahma waxa loo access modifier wax kale ma qabto waxa weeyaan waa wax walbo aan private dhaho hortiisa classka gudihiisa keliya ayaa laga isticmaali karaa classka banaankiisa classkan oo hadda program la dhaho uma soo yeeran karo wixii aan private u bixiyo aniga private ii yihiin waay classka magac ayaa iskale asaga private u yihiin gudihiisa unbaa laga isticmaali karaa okay private baan leenahay kadib waxaan samaysanaynaa xarfo kala duwan ama magacyadaan qoranaynaa oo aan rabo data fields oo aan rabo waxaan ku shubto data fields ama ayaan samaysanayaa meel aan macnaha sida hadda kor ku idiin sheegi jirnay oo ku saabsan macnaha maan badanaa waxay ila socotaan mid ila ogaada class gudihiisa marka wax ku samaysanayo badanaa variable ma dhahayo markaan waxaan isticmaali doonaa ereyga ah data fields ya data fields aan samaysana waxaan leenahay data fields-ka laakiin type-kooda lama yaqaan ma qoraal bay noqon doonaan ma lambaray ii qabanayaan ma decimal ii qabanayaan xarfo wata ma boolean ba oo macnaha true iyo false ah ma garan karno marka waa inaan sheego waa inaan dhahaa marka data fields-ka waxay qaban doonaan qoraal magacadan u bixinayana wax kale ma aha waxa weeyaan waa first name middle name iyo last name saddex waxaan samaystay data fields ah kadib waxaa loo baahan yahay wax la yiraahdo inaan samayno classyadu badanaa waxay leeyihiin waxa la dhaho constructorku asagu wax kale ma qabto waxa kaliya uu kaga duwan yahay wax kale ma aha waa method waa function weli functionada kamaan hadal laakiinse haddii lala soo xiriiraya classkaygan magacyo classka la yihahdo hadduu hadda program classka la dhaho uu rabo inuu la xiriiro magac fiiri meeshan haddii hadda kaba soo qaad classkan oo la yiraahdo program uu rabo inuu la soo xiriiro classka la dhaho lahaado hadduu rabo inuu la soo xiriiro classka la yiraahdo magacyo data fields-kagan private-ka lama hadli karo mana u yeeran karo lamana siin karo laakiinse cidda keliya markaas xiriir la samayn karta ee galaaska gudihiisa galaaska la xiriiraya galaaskan wuxuu amrayaa inuu la hadlo constructorka okay hadda constructor waana samaysanaa somaa marka okay constructor samaysanayna halkana marka constructorka qaabka loo sameeyo wax kale ma aha waxaa loo sameynaya asagu waxaa shuruud ah oo khasabna ah constructorku waa inuu qaataa magaca calaaska oo kale waa in isku magac qaataan dib baan idinkaga sheegi doonaa sababta okay hadda constructorkan samaysanayna constructorkeena marka waxaan leenahay public sababtan public uu yiri waxa weeye ogolaashan waxaan u siinayaa classkan banaankiisa in lala soo hadli karo asaga maadaama aniga aan ka dhigtay field type-kiga private okay magacana waa inaan bixinaa magaca classka oo kale hello okay kadibna waxaa jira arguments waxa la yihahdo markii loo yeerto constructorkan macnaha lala soo hadlo wuxuu u baahan yahay constructorkan in uu qofka isticmaalayo uu yirahdo hey maxaad u baahan tahay waxyaaluhu u baahan yahay inuu soo geliyaa marka muxuu soo gelin doonaa wuxuu soo gelin karaa string wuxuu soo gelin karaa waxaan leenahay magaca koowaad okay waxaa kale ii soo gelisaa magaca labaad waxaa kaloo ii soo gelisaa magaca saddexaad okay mayna xogaa geeskaasi tagtay kadibna kooda bracketkeygaan furanaya halkaana imaanaya marka waxbaa intusaya halkan ila fiiriya okay waxa weeyaan marka naga xir tanasaale sawarta waxaan qoray waxaan idhi public ogolaashaan u siiyeen classka la soo xiriiri karo magacyada constructor baa la dhahaa constructorku waa qasab waajib magaca inuu qaato classka oo kale string waxaa halkan u yidhi data type-ka aan rabo in macnaha uu classkan inuu qabsado ay tahay ama lasoo siin karaa waxaa la yihahdaa kuwan meeshan gudihiisa ku jira oo methodku u badanaa qaato magaciisa magacyada waxaa loo yaqaana waxa la yihahdo waa arguments waay oo soo gala halkan
string waa magacaaga manaha waxaad soo gelin kartaa waa magaca koowaad magaca labaad magaca saddexaad isla markaana wax kale ma samaynayno wixii halkaa la soo geliyey marka waa ila arki doontaan haddii aad weli inaan fahmin waa fahmi doontaan wixii halkaa la soo geliyo waxaan ku shubaynaa first nameka magaca koowaad wixii la ii soo geliyay first namekaan gelinaya marka waxaan leeyahay f name hala mid noqdo magaca koowaad okay m name hala mid noqdo magaca labaad magaca labaad anaa dhahnaa magaca labaad waxaan leenahay last namekana hala mid noqdo magaca saddexaad okay intaas wax kale maaha classkii hadda waa dhammaaday classkan hadda awood wuxuu u leeyahay inuu object ka samaysto banaanka wataan dhahnay objectiga marka la sameynayo qalabka loo baahan yahay wax lagu sameeyo objectiga waa classes way class haddaad haysan object ma abuuri kartid classkan hadda object wuu abuuri karaa banaanka wuu abuuri karaa halkan ku abuuri karaa object hadda class baan samaysanay la yidhahda magacyo waxaan u sameynay data fields oo ah first name middle name last name kadibna waxaan nidhi constructorkama waxaan u ogolaanay in la soo xiriiro banaanka oo loo soo dhiibo magaca koowaad magaca labaad magaca saddexaad mid kolba oo loo soo dhiibana wuxuu ku shubayaa filliga koowaad wuxuu ku shubayaa magaca koowaad filliga labaad wuxuu ku shubayaa magaca labaad filliga saddexaadna magaca saddexaad okay hadda waxaan tegaynaa marka classkeeni macnaha main methodku ku dhex jiray waataan soo barnay constructorka mar walba asagu wuxuu fiiriyaa kow waa main methodka macnaha functionkan soo fiiriyaa wixii halka ku jira u akhriyaa marka waa in hadda object meeshan dhexda ku abuurno object markaa abuuraysa marka classkii abuuri lahaa magaciisa waa in la sheegaa yaa abuuraya classka la yidhaha magacyo okay waxaan leenahay isagaa bajaa soo qabtay classkii magacyo markaan nahno isagaa soo qoray classkii magacyo kadibna objectigana magaca u bixinaynaa dadka magacooda okay kaas waxaan leenahay sidan kadibna waxaan leenahay new key flarekan waxa kala maahan waxaa soo socda constructor way markaasna kadib waxaan u yeeranaynaa constructorkii public ah ee ku jira halkan so halkan classi magaciisaan qoray kadibna waxaan sameeyey saa dhoosaa ila aragtaan classka magaciisaan qoray magacyo kadibna objectiga magac baan u bixiyey kadibna hadda waxaan u yeerayaa constructorkii okay constructorka maxaan ku dhahaynaa marka magaciisa muxuu ahaa magacyo saas maahay constructorkana magacyaa la oran jiray kadibna waa inaan u dhiibnaa magaca koowaad magaca labaad magaca saddexaad halka gudadan u gelinaynaa maadka sooma waxaan leenahay Isaaq waxaan leenahay Maxamuud kaas waxaan leenahay okay jaamac okay kadibna waan uma baahnitaa inaan ku furo kadibna saasaan leeyahay waxaan hadda sameyn wax kala maa object waxaan sameyn magaciisa la yihahdo dadka magacooda annaga oo isticmaalayna classaan soo samaysanay okay marka objectigan markaad objectiga samaysato ayaa waxaad leedahay new constructorkii aan soo barana u yeeraysaa magacyadii baa u dhiibaysaa hadda magaca cabdirasaaq halkaasuu gelayaa kadibna waxaan booskaas markuu halkaa aan geliyo cabdirasaaq oo meesha hadda geliya halkaas way isleeyihin halkan halka cabdirasaaq ku jira cabdirasaaq halkaasuu gelayaa kadibna markuu cabdirasaaq halkaa galo ayuu constructor ku qabanaya cabdirasaaq automatically cabdirasaaq wuxuu ku shubaya asagana first name magacan kale maxamuud intuu gelayaa magaca labaad asagana uu soo baxaya halkaasuu gelayaa kadib wuxuu ku shubay asaguna middle nameka jaamac magaca saddexaad halkaasuu gelayaa asagana halkaan uu soo gelaya kadibna xaggaasuu sii gelaya marka waxa weye f name waxaa hadda ku jira cabdirasaaq m name waxaa ku jira maxamuud l name waxaa ku jira jaamac waxaan umala inay la fahanteen okay sidaa marka ay tahay hadda waxaan samaysanay objectigan aan hadda samaynay waxaan u baahannahay inaan banaanka usoo saarno si aan u aragno waxa ku jira laakiin maadaama casharku nagu dheeraaday waxaan ka sii wadaynaa casharka kan kusii xiga
waxaan baranaynaa class la yidhaahdo toString oo asaga dadka ka caawiya qaabka ay objectiga waxa ku jira bannaanka u keeni lahayn hadday string yihiin. waa mahadsantihin. Asalaamu calaykum. isticmaalayna luqadda C#. waxaan idinkaga tegayaa intaa kadib. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.